arrinka maanta dhacay oo maalmahan socda ma uunan soo bilaaban hadda kufriyaadka ninkaani uu la yimid waxay soo socdeen dhowr sano mana aha nebigu caayay nebi maxamed keliya ma aha horayba wuxuu ugu soo tuntay oo wax ka qabtan la waayay nebiyullaahi muusa muxaadara uu jeedinayo duubay uu leeyahay waa cilmu daahir iyo cilmu baatin anugu waxaan aaminsan oo aqaanaa cilmu baatinka ayaana xeel dheer asagaana macnaha qofka fahmay uu dhuuxay waxa weeye uusan daahir u baahnay siduu u soo waday buu wuxuu yidhi tusaalahan idin siinayaa waxa weeye khadir calayhi salaam wuxuu aaminsanaa oo ku socda cilmu baatin nebiyullaahi muusana wuxuu aaminsanaa cilmu daahir labadoodiina way doodeen markaasaa nebi muuse ceeboobay bihaada lafdi ayuu odhanayay nebi muuse ayaa ceeboobay markaasuu ku soo celiyo wuxuu leeyahay ilaa cilmu daahir ow qayma ma lihid nebi muuse ku ceeboobay ilaa ayuu leeyahay dhowr sano ka hor ayuu odhanayay kama soo bilaabin kufrigaas sabbiga maanta nebiga uu geysanayo iyo kanaa rasuul ah wuxuu caan ku yahay meesha uu joogo oo goobtaah uu degan yahay wuxuu ku magacaabay markuu dhisayay bayturasuul beydkii rasuulkaan dhisaya markaasaa dad cawaam ah oo nebi maxamedba aan beyd inuu leeyahay usan lahaynba adduunka aan waxba ogayn ayaa yidhi bayturasuul aan ka qayb qaadanno markaasaa waxaa loogu deeqay dhagaxa dejintiisa lacagta la bixinahayo shaqaalaha shaqaynaya fuundiyaalka ayaa loogu deeqay xarun ayuu dhistay markaasuu wuxuu ku magacaabay bayturasuul nasre iyo durbaan buu ka bilaabay makarafoonna waaweyn buu ku xirtay xaafadihii dariska ahaa dadkii deganaa waa ka guureen habeenkaas oo dhan buu ku dhawaaqaya jaadka u yimaada oo nairobi uga yimaada waa firi qaybta jaadka u soo baxda asaga loo soo qaado dadka yaqaanaa waxay noo sheegeen in loogu soo qoro siyaaradii sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare ayaa loogu soo qoraa markaasaa diyaaradda marka laga soo dejiyo jawaanadiisa gooni baa loo dhigaa asagaa loo geliya salaada waaguu diidi jiray ma dhoweyn ma tukado macruuf weeye kuwii la joogay oo ayagu iskood u tukanahayay oo markii dambe iska daayay baan weydiinay markaasay yidhahdeen shiikheennaa iska daayay maxaa yeele wuxuu yidhi aniga nebiga ii tukada idinkana anaa idin tukada iska daaya yaqiintii baan gaarnay ma tukado waa salaad la'aan waa fuxshi iyo daroogo waa khinaagaas iyo muusigaa la tumahayo waa sabul anbiyaa oo lacaynayo waad aragteen aayadaha qur'aanka markuu ku heesahayo intuu soo kaxaysta koox dhan oo fariiq ah inuu ku heesahayo aayadihii qur'aanka oo markuu marahaya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu inay dhunkanahayo sawirkaa isaga waa aragtay talaacubka heerkaas gaaray iyo kufriga heerkaas gaaray iyo zandaqadaas dad baa la jooga u aaminsan inuu yahay weli soo daahira sheekh cabdiweli saas u aaminsan markii sawiradiisa ay wadeen waxay ahayd bil ka hor 2 bilood ka hor ayuu sawirka meesha keenay ilaa aan aragnay dad aaminsan inuu yahay sawirkan rasuulka ilaahay oo asaga intuusan hadlin ka hor ayaan arkaynay dad oranahaya sawirkan aan wadana waa sawirkii cabdiweli uu natusay waana nabiyullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam adigu adduunyada iska joogtay inay maxad maal arag anuu darajo ayaan ku dheerahay kaala rasuulkii ku soo tusay muxamed aha sawirkiisa kaala soo daaway oranahaya markaan uu hadlahayo banaanka isu soo dhigahayo waa marka nin wadaadii intuu ka hadlay uu yidhi waxaasi waa fuxshi iyo dembi ayuu seef intuu garabka soo saartay oo jaaka tuutaa soo gashaday ayuu taxaddi arrinkiisa uu ku taxadinayo oo uu difaacanahayo ayuu wuxuu yidhi maxay ka yaqaanaa nuur lawxul maxfuudkaan daalacday waxaa ugu qoran ninka i radinahaya alla ka jeesta yus ila yus baraa ugu qoran buu leeyahay bal ka war ninkii ka hadlayba wuxuu leeyahay asaga dhanba khaatuwadiisaan ka warramaya lawxul maxfuudka waxaa ugu qoran inuu yahay inuusan khayrba lahayn baa ugu qoran intaasuu soo mar haddau midkaani sidaas yahay midka uu rasuulka ku sheegayaa man huwa ma mid asaga dhaamaa dadkii yaqaanay oo shakhsiyan u yaqaanay kuwii la joogi jiray markii aan waraysanay ninka isaga ah bilow la yidhaahdo oo rasuulka uu ku sheegahayo magaciisa maxamed baa la yidhahdaa ina sheekh xuseen baa la yidhahdaa wuxuu ka yimid dhinaca Itoobiya wuxuu joogaa mataqaana street buu joogaa Nairobi ninka isaga ah asaga ayaa daroogadan iyo waxa iyo sixirka sheekhu ugu ahaa waa nin sigaarka caba waa nin jaadka cuna waa nin baashan shishada dhuuqa ninka raba agtiisa maqaam inuu ka gaaro oo uu raba inuu sharaf iyo qiimo agtiisa ka yeeshana 6 bilood waxa shardi ah
inuu bahashaa shiishada ah oo dhuuqahayo dhuxusha lagu shidahayo inuu shida ayaa shardi ah 6 bilood ayaa dabka u shiishada u shidaysa markaas ka bacdi baa agtiisa waxaad ka gaaraysaa maqaam iyo darajo ka gaaraysa wuxuu soo dhiibaa usbuuc kaste dadka yaqaanaa say noo sheegeen caagad buu soo dhiibaa ay ku jirta tahliil wuxuu ku magacaabay oo sixir ah wuxuu u soo dhiibaa ninkaa gaalkacyo jooga markii loo geeyana ninkaasi wuxuu ku shubaa barkad xarunta ku dhex taalluu ku shubaa dadka ayuu yidhaahdaa tahliishii usbuuciga ahayd weeye usbuuca la cabbi jiray kakabada oo sixirka ahayd jaadka ayaa la keenaa marka jaadka la keeno biyaha tahliishaaha lagu fardhiyaa intaan la curin ka hor waxay ku sheekeeyaan oo yidhaahdaan jaadka caleentiisu geedaha kale waxay uga duwan tahay jaadka caleentiisu waxay ku baxday ismullaahi alacdamkay ku baxday yidhahdaan dadkii joogaa noo sheegay ninkaa isaga ah oo asaguna soo duubay hadalka uu leeyahay nebi ma sheegan dajalkan iyo kufrigaanna aabba u ahaa dad dhowr abaa hadda la jooga oo qaar qaraabadiisa yihiin qaarna dad kale ay yihiin sida naloo sheegay dadka iyaga abaa u aaminsan ilaa yowmina haada inuu yahay nebi soo daahira asaga laftigiisu nin ayaa jiray nebi inuu yahay uu u aaminsanaa oo uu daaci u diray tanzaniya oo tanzaniya tagoo laga soo cayriyey baa jiray ninkaasi haweenka dumarka oo la jooga uma kala socna tanaa ajnabi ka amale markii la yidhahdo maxaa u salaamaysaana wuxuu yidhaahdaa ummahaatulmu'miniin weeye aniga waa ii bannaanta fayl ayaa loogu jiraa tahliishiisa iyo dawadiisa qofka ma taqaanaa siinaya lacagna wuxuu ku siinaya inuu karaamiya maqaam ka gaaro ayuu ku siinaya nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayay dadka noocaas oo kafarada ah maanta ay keeneen inay sheegtaan oo ay nuqsaamiyaan oo mandarka iyo isaga aad aragteen inay ku shabahaan nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka ahi haddii la yidhahdo ahalkaagaa la dhacaya ama cirdigaagaa la dulaysanaya ama maalkaagii baa la boobayaa wuxuu isku dayayaa wasiilo kaste iyo waddo kasta oo maalkiisa ku difaacan lahaa carruurtiisa iyo xaaskiisana ku badbaadin lahaa naftiisa uu ku badbaadsan lahaa buu isku dayayaa laakiin nebigii kaaga xaq badnaa naftaada iyo maalkaaga iyo ahalkaaga haddaadan lisaankaagu kelimadna uusan karahayn ka war haddaadan seef qaadanahayn u dagaalamahayn haddaadan lisaankaaga ku difaacahayn haddaadan maal ku bixinahayn nebiga inaad ku difaacdi bal ka war maxaa is leedahay ilaahay agtiisa ahoo qiimaa baa ka leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in yasha yudhibkum waya'ti biaakhariin hadduu doono ilaahay kulligan waa na kaxaynaya waa na halaagaya markaasaa ilaahay kuwa caabuda oo nebi moxamed cirdigiisa wax walba ka hormariya oo diintiisa u istaaga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keena cawaamta la joogta oo nebi inuu yahay aamintay qaar ka mida oo masaajidka jooga ayaa la hadlay dad ka mida war ma waxaad aaminsantihiin waxa soo baxay oo cabdiweli idiin sheega miyaad u aaminsantihiin nebi inuu yahay markaasay yidhaha nebiyullaahi moxamed waysuu noogu sheegay buuri hadduu yidhahdo waan ka laabanayaa xabiibkii aan jeclaa baan ka waday oo kama wadin mataqaanaa nebiyullaahi moxamed waxaa diidahaya waxa duuban oo ka sajilan baa diidahaya oo aan sinaba u aqbali karin walidaalika bay ahlucilmigu waxay soo guuriyaan qofka haddii laga hayo lafdi sariix ah oo cad haddii laga hayo wax allaaliya wax ta'wiila laga aqbali maayo kaas sariixaha lagu qaaday laga aqbali maayo wax ta'wiila walaalayaal baaraka allahu fiikum qadiyaddaa khatarta ah qof waliba wixii uu ka dhihi karo iyo wax alla wuxuu ka qaban karaa ha u istaago dadka mas-uuliyiinta ah oo manaasib iyo awood haysta waajib waxaa ku ah ninka isagaa inay soo qabtaan cadaaladana keenaan ayna mariyaan sharciga islaamka wuxuu ka qaba ay mariyaan waajib bay ku tahay inay hadlaan oo dhawaaqaan meel walba ka hadlaan waajib bay ku tahay gaar ahaan kuwa uu la joogo oo deegaankooda uu ku nool yahay culummo iyo caamo madax iyo maamul kaste waajib waxaa ku ah ninka inay soo qabtaan oo ilaahay uga baqaan hadday ilaahay madar iyo khayr ka rabaan haddii kale khatar weeye nihaayadooda inay noqotaa laga yaaba khatar weeye nas'al allaha asalaam allahuma inna nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى على ظهر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين